Puntlnad wax cadaalad ah kama jirto sidoo kale Saabiriin ma heli doonto wax cadaalad ah waa hadaladii ugu badnaa ay Facebookyada ku soo qorayeen dadka xumaanta ka faafiya deegaanada Puntlnad waxa kula wadaagayaa wixii maanta ka dhacay magaalada Dagaalka ee Puntlnad Saabiriin sida ay maanta cadaalad u heshay iyo sidoo kale waxaan kula wadaagayaa xukunnadii kala duwanaa ee lagu riday dadkii dhibaatada maanta u geystay Saabiriin oo ahayd gabar yar oo la sheegay inay ahayd agoon iyo sidoo kale rajaba dil toogasho marka ugu horeysa wax ka codsanay inay YouTube ku soo birto oo subscribe dhahdo muuqaalkana like saarto si ay ku soo gaaraanin warbixinada ku saabsan deegaanada Soomaalida iyo sidoo kale gaar ahaan deegaanada Puntlnad ee aan halkan maalin walba ku soo gudbino hadii aan ku bilaabo toddobaad ka hor waxa magaalada Dagaalka gaar ahaan dhanka Puntlnad lagu dilay Saabiriin oo ahayd gabar agoon iyo raja sida la sheegay gabadhaas ayaa loo jirdilay si xun iyada oo ay dadka Soomaaliyeed ay aad uga caroodeen ama ay ula damqadeen gabadhaas yar sida loo dilay iyo sidoo kale dhibaatooyinka loo geystay Saabiriin ayaa inta aan la dilin ka hor waxa loo geystay dhibaatooyin badan oo ay kamid yihiin in jirkeeda la jeexjeexo in si ka baxsan bini'aadantinimada loola dhaqmay oo muuqaal la soo duubay wax la muujinayay iyadoo lagu shaqeynayay oo si khasab loogu shaqeynayo oo ka baxsan bini'aadantinimada dadka Soomaaliyeed ayaa arintaas aad uga falceliyay iyaga oo gabadhaas aad ugu dooday magaalada Dagaalka toddobaadkii la soo dhaafay aad bay u kacsaneed waxa ka dhacay mudaharaadyo waaweyn oo ay haween iyo sidoo kale dad kala duwan ay halkaas ku mudaharaadayeen iyaga oo cadaalad u raadinaya gabadhaas yar ee dhibaatada loo geystay dhanka kale dadka Soomaaliyeed ayaa gabadhaas aad uga taageeray baraha bulshada inay gabadhaas cadaalad hesho iyaga oo Facebookyada iyo sidoo kale baraha bulshada oo ay kamid yihiin TikTok iyo YouTube-kaba ay ku soo daabacayeen codad iyo sidoo kale qoraallo ay deegaanada Puntlnad iyo maxkamadda degmada Boosaaso ay kaga codsanayeen in gabadhaas cadaalad ay cadaalad hesho maadaama dhibaatooyin xun loo geystay maanta ayaa maxkamadda degmada Boosaaso ay u fariisatay dhageysiga dacwadda maalinkii labaad waxa dil toogasho lagu xukumay hodan oo ah qoftii dhibaatada u geysatay gabadhaas yarta ah oo ay gurigeeda joogtay kuna shaqeysan jirtay dhibaatooyin badan ay u geysan jirtay waxyaabaha maanta ay tiri hodan oo ah qofka dhibaatada u geysatay Saabiriin waxa kamid ahaa inay tiri anigu waa xanuunsanaa markaan dhargo ayaana gabadhaas dili jiray waa hadallo kale oo aad ay dadka uga sii xumaadeen in gabar yar oo miskiina oo xaafadeedii joogta lagu shaqeysto haddana dhibaatooyin intaas leeg loo geysto nin kale oo isaguna la sheegay inuu gurigaas oday ka ahaa gabadhan adeer oo ahaa oo mas'uul gabadha ka ahaa oo guriga keenay ayaa isagana waxa lagu xukumay 1 sano oo xabsi ah iyo sidoo kale $500 oo ayaa lagu xukumay ninkaasna dadkii marka deegaanada Puntlnad ka faafinayay inaysan wax cadaalad aysan oolin maanta candhuuftoodii dib ayay u laqeen deegaanada Puntlnad inta badan waa deegaano ay cadaalad ka jirto maxkamadahoodana ay si fiican ay u shaqeyso walow kiiskaanu uu ahaa kiis ka duwan oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay indhaha ku hayeen waxa jiray kiis kan la mid ah oo kufsi iyo dil ahaa oo magaalada Dagaalka ka dhacay dhanka Puntlnad kiiskaas ayaa isagana dadkii geystay ay Puntlnad cadaalad hor keentay ka bacdi waxa lagu xukumay dil iyagana waa la toogtay waxa la fiirin doonaa Puntlnad inay arintan dhameystirto oo ay tiirka geyso hodan oo ah qofkii gabadhan dilka u geystay arintan ah in dhibaatada loo geysto caruurta ayaa soo laabatay muddooyinka u dhameeyay toddobaadkan gudihiisa waxa muuqaalo iyo sidoo kale sawiraan kale oo qof dhibaato loo geystay oo ilmo ahaa lagu faafiyay baraha bulshada kaas oo iyadana laga damqaday laakiin wax faahfaahina lagama helin Saabiriin balse ilaahay baa cadaaladda la rabay inay waxa weeye maadaama dhibaato loo geystay dhibaatadeedii in loo gudo ilaahay baa la rabay oo muuqaalo ayay ka duubeen
gabadha laftirkeeda la sheegay inay dhibaatada gabadha u geysatay oo lagu magacaabo hodan ayaa iyaduna muuqaalo ay gabadha oo ay ku shaqaysanayso ayay muuqaalo ka duubtay halkaasna codkeeda ayaa laga maqlay waxa ayna u noqotay markhaanti iyada markhaanti isku furtay oo muuqaalka ay duubtay ayaa codkeedii laga dhex maqlay maanta xukunkan lagu riday hodan dadka Soomaaliyeed aad ayay ula socdeen waxaana laga dareemayay baraha bulshada Soomaalida iyo muuqaaladii leefka ahaa oo maxkamadda degmada Boosaaso ee Puntlnad sida leefka ay u daawanayeen dadka Soomaaliyeed baraha bulshada oo kala duwan aad ayay ula socdeen xitaa dad badan ayaa kiiskan ka dhul sugayay oo leef kala socday oo waxay ku sugnaayeen iridaha hore ee maxkamadda degmada Boosaaso kuwaas oo markii xukun dil ah lagu riday hodan oo qofta dhibaatada u geystay gabadhan waxay sameeyeen dabaaldeg iyaga oo ilaahay uga mahadnaqay in gabadhaasi ay cadaalad heshay dadka Soomaaliyeed ayaa iyagu number 1 ka ahaa in la dedejiyo oo ay Saabiriin cadaalad hesho kadib markii ay social media ay aad ugu falanqeeyeen maxkamadda degmada Boosaaso iyo madaxda Puntlnadna ay ka codsadeen in gabadhaas yarta ah ee agoonta iyo rajada ahayd loo argudo waxa ayna heshay Saabiriin cadaalad waxaan ilaahay uga baryeynaa in uu naxariisto halkan hadaa daawada nala soo gaartay mar kale wax ka codsanaya in YouTube-ka ku soo birto oo subscribe dhahada muuqaalka la ii saarto gambaleelkana furato si ay ku soo gaaraanin warbixinada maalinlaha ee halka ku soo gudbino